kadib markii shalay Israel ay duqeysay xarumihii shidaalka ee dalkaasi Iran ayaa madaxweyne Trump qoraal dheer wuxuu soo dhigay bartiisa gaarka ee Truth Social Media loo yaqaano wuxuuna si cad u sheegay in Mareykanka arrimahaasi uusan waxba ka ogeyn isagoo dhinaca kalena digniin u diray dowladda Iran sheegayna in ay weerar kale oo culus ay la kulmi doonto haddii aysan isbedel la imaanin saacadaha soo socda. dhinaca kalena mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee ugu casaysan ee loo yaqaan RQ-180 kana dhooman karta nidaam difaaceedka ayaa la arkay iyadoo si degdeg ah kaga dagaysa garoonka ciidamada cirka ee dowladda Greega. lama sheegin sababta rasmiga ee ka dambeysa, ma waxaa jirta cilad farsamo oo sababtay inay diyaaradan ay soo degto mise howlgal culus ayaa la qorsheynayaa. diyaaradan waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee ciidamada dowladda Mareykanka, waana mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan kuwaasoo xogtooda xitaa aad loo qariyay laguna tilmaamay inay yihiin diyaaradaha awoodda badan ee Mareykanka ee jiilka 6aad. waxaa la sheegay diyaaradan in ay awoodda u leedahay inay raadaarka ka dhuumato, sawirro tayo leh soo qaado, sidoo kalena ay ogaato dhaqdhaqaaqyada military iyo saldhigyada qarsoodiga ah ee dhulka hoostiisa. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha. dowladda Iran ayaa meesha ka saartay hadal horey uga soo yeeray Mareykanka iyo Israel oo ah in la wiiqay awooddii gantaalada ee dowladda Iran, sidoo kalena la bartilmaamaysaday halkii ay Iran ay ka soo ridi jirtay gantaalada. barnaamijka gantaalada dhulka hoostiisa ee dowladda Iran ayaa lagu warramayaa marka in calaamad su'aal uu hordhigay qaar ka mid ah falanqeeyaasha military ee Israel iyo Mareykanka. Iran waxay weli ay sii wadaa soo ridida gantaaladeeda balastiga iyo kuwa kale ee awoodda sare leh, balse xawligii ridista gantaaladaasi ayaa hoos loo dhigay labadii maalin ee ugu dambeysay. waxaana falanqeeyaasha iyo sidoo kale khubarada dhanka militariga isweydiinayaan, ma farsamo dagaalba mise awooddii dowladda Iran ayaa la wiiqay, mise waxaa la burburiyey xarumihii iyo goobihii lagu keedin jiray gantaalada dowladda Iran. sida lagu sheegay warbixin telefishinka Al Jazeera uu daabacay iyadoo la soo xiganayo sawirro dayax gacmeedyo ah oo telefishinka Al Jazeera ay heleen ayaa muujinaya 26 goobood oo la toonsan yahay inay yihiin xarumo lagu kaydiyo ama laga soo rido gantaalada dowladda Iran. marka lala barbardhigo sawirro hore iyo kuwo dambe oo la qaaday taariikho kala duwan, waxay muujinayaan in dowladda Iran weli ay awood u leedahay inay soo rido gantaaladeeda, halka ay Mareykanka iyo Israel ay taagan yihiin waan burburinay xarumihii ugu muhiimsanaa. sidoo kale Al Jazeera ayaa baahisay inay sawirrada qaar muujinayaan in burbur uu soo gaaray goobaha laga soo rido gantaalada dowladda Iran, iyadoo xarumo qaarkoodna la sheegay inay waxyeello ay ka soo gaartay dowladda Iran. waa xaqiiqo inta dagaalka uu socdo Iran inay weerar xooggan oo dhanka cirka ay la kulantay, maalin kastana la duqeynayo xarumo dhowra, laakiin weli waxay awood u yeesheen inay gantaaladooda sidoodii ay u soo ridaan. waxaana la isweydiinayaa halkee ayay gantaaladan ay ku qarinayaan Iiraaniyiinta. macluumaadka ayaa waxay muujinayaan marka la eego muuqaaladii ay baahiyeen ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iran in magaalooyin dhan ay jiraan oo dhulka hoostiisa ah, kuwaas oo gantaalada lagu qariyo loona yaqaano magaalooyinkii gantaalada. waa shabakado dhulka hoostiisa ah oo xitaa la sheegay in muuqaalada laga soo duuba ay muujinayaan inay u egyihiin sida goobaha laga rida gantaalada oo guurguuro oo kale iyo tanalo waaweyn oo mararka qaarkii lagu qarin karayo ilaa 9 gaari hal jeer. qiyaasaha waxay muujinayaan marka dowladda Iran in weli aysan waxyeello gaarin xarumahooda muhiimka ah, laakiin inta badan ay reer galbeedka ay buunbuuniyaan in waxyeello la gaarsiiyo xarumihii hubka ay ka soo ridi jirtay dowladda Iran. waxaana falanqeeyaashu ay taagan yihiin haddii dowladda Iran laga burburiyo xarumihii ugu muhiimsanaa ee gantaalada balastiga, maxay habeen kasta u soo ridayaan in ka badan 100 gantaal. qiyaasaha ku saabsan qoto dheeraanta magaalooyinka kala duwan ee hubka lagu qariyo ayaa qaar waxay leeyihiin ilaa 60 mitir ay dhulka u qodan yihiin, qaarkood ilaa 100 mitir, halka qaarkoodna ay leeyihiin ilaa 500 mitir ayaaba suuragal ah inay godadku gaari karayaan. nidaamkan wuxuu u shaqeeyaa si lamid ah baqaarada hubka ee otomaatika u shaqeeya, balse aad u horumarsan. gantaalada waxa lagu kaydiyaa iyaga oo kala go'an oo ku kala jira qaybo kala duwan oo dhulka hoostiisa ah. kadibna waxaa la sheegay in la isu geeyo oo la rakibo gaadiidka dushiisana lagu rakibo, taasoo ka dhigan marka saldhigyada guuro oo kale in loo aqoonsan karayo marka gaadiidka hubkan la soo saaro. tanina waxay u ogolaanaysaa in si isku xigta dowladda Iran ay gantaalo badan ay u rido. khubarada ayaa si weyn waxay ugu kala aragtiyo duwan yihiin marka awoodda iyo waxtarka nidaamka gantaalada ee dowladda Iran. kooxo qaar waxay aaminsan yihiin in qoto dheeraanta weyn ay ka dhigayso xarumahan kuwa ka badbaada xitaa bamka ugu xoogan ee caadiga ay Mareykanka u haysto, isla markaana Iran ay u dhistay halkan si ay u hubiso awooddeeda dhanka weerarka, xitaa haddii ay la kulanto weerar ka ballaaran dagaalka hadda soconaya. tani waxay u muuqataa markaa in Iran awood kale oo dheeraad ah ay weli u qarsan tahay.
koox kale oo qubaraan waxay qabaan in goobaha magaalooyinkani go-aan ay horey usii ogaayeen sirdoonka Maraykanka iyo Israel, kuwaas oo ay ku raacayaan isbedelada dhanka dhulka, kulaylka iyo sidoo kale tiknoolajiyadda sirdoonka ee macmalka. taasina u suuragelisay inay xarumo badan ay beegsadaan. laakiin waxaa la ogaaday in ilaa iminka Iiraan ay awood u leedahay inay kumanaan kale oo gantaale ay soo rido, sidoo kalena suuragal ay tahayba inay gantaale kale ay soo saarto inta dagaalka uu socdo, inkastoo xaaladu ay ku adag tahay. dhinaca kalena Israel ayaa qorsheynaysa markii ugu horeysay inay xaafado dhowr ah oo dalkaasi Lubnaan ka tirsan, gaar ahaan koonfurta, inay isku ballaariso oo deegaanadaasi ay xoog ku qabsato si la mid ah deegaanada daanta galbeed. laakiin arrintaasi waxaa ka hor yimid Xisbullah oo dagaal adag la galay saacadihii lasoo dhaafay Israel, sida ay warbaahinta Macaarif oo Israel laga leeyahay ay baahisay. dhinaca kale, ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa lagu waramayaa inay gantaale ay ku garaaceen xarumo dhowr oo ku yaala gudaha dalka Ciraaq, iyaga oo bartilmaameedsaday danaha Maraykanka ee dalkaasi Ciraaq. Maraykankan wuxuu ka fikirayaa suuragalnimada in weerar dhanka dhulka uu qaado. ma wuxuu ku qaadi doonaa jasiiradda Kharij lagu magacaabo? ma wuxuu ku qaadi doonaa xarumaha uraniumta ee dowladda Iiraan? mise wuxuu ku qaadi doonaa xeebaha gacanka Hormuz? waa saddexda goobood ee la isleeyahay Maraykanku wuxuu qorsheynayaa inuu weerar uu ku qaado. ilaa 5,000 oo askari ayaana lagu waramaya suuragalnimada in la diyaarinayo. ma kula tahay inay ciidamadaasi awood u yeelan doonaan inay xarumahaasi ay gaaraan? aragtidaada nala wadaag, like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay.